حدك عطانكي لحظك عبرتي إسقي حرية دير لحدك وعم بحو والله بالله مربى عرفو ربي صوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا عليه بلوغي حدك عطانكي لحظك عبرتي إسقي حرية دير لحدك وعم بحو والله بالله مربى عرفو ربي صوعير عدودادو سيدا عربتيو وبحر دينار عفي دونتا wanaagsan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen xafladaha qiimaha badan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada Somali Youth for Change ama loo soo gaabiyay SYC. maanta waxyaabaha ka hadli doona aad bay u dhoweyihiin oo waxay ku saabsanaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo isbedelka iyo doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan. muxuu yahay isbedel maxaa dhammaan lagu bulsho aad u adag baa suuragal maanta inaad jawaabo halkan ka heshaan. waxaan jeclahay inuu marka hore u furto wax lagu furo waxa ugu qeybka badan oo aayadaha qur-aanka kariimka ah qowlka Yaabe waxaana aayadaha qur-aanka iyo xoogaa la adiya inuu soo geeyin doono ilaahayna ka siiya alfataax minuu kusoo ilaafta. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لكم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. إله سبحانه وتعالى ما تسكره ما أنت معاور كان ملكم سيء إلهي وحان كبرينا إن ودك الصومالي يبغض رجله waxaana ilaahay ka baryaynaa dadku ilaahay jannada waxay kula kulmayaan waalidiinta iyo carruurtooda ilaahay naga dhigo kuwaasi waxaa xusuustaa keliya munaasabadan qiimaha leh inaan runtii ka hadlo. ilaahay subxaana watacaala wuxuu aayado badan badan ku sheegay haddii ummadda ay xumaanta ay hayaan ay ka baxaan in ilaahay janno uu ku abaalgudayo. ilaahay wuxuu sheegay qolooyin badan ay kusoo sheekeeyey oo xumaan badan sameeyeen qaarkood la ciqaabay qaarkood waabiyey sidaa waqtigiina qowmkii nabi muuse 40 sano ayaa waxaa la geliyey in rash iyo diig iyo duufaan iyo waxa lagu sameeyey. sababtan waxay ahayd maadaama ilaahay subxaana watacaala ay ku cabsiyeen. hadday ilaahay caayeen ummad dhinac walba isku abcisay haddii ahaan lahayd dhaqankoodii haddii ahaan lahayd diintoodii ay markaasi ay haysteen hore tii hataa gaalanta haddii aad hataa واسمعوا مرة إله سبحانه وتعالى وكلمي ضدكاسي وقصة ضدي وقوما أو حال إله خمسين أو مرة لما يصل سيحتى إلى ما يلا تستحقه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو من دمانتي الآن اللي سدوينا هذا وفرح سنة كسوق الجيش كمان نقل سوق الجيشان كلن كان. أنا وحن رجعنا جوله إلى بنا وحكي فايدة مانتا كل حسكوني ما نمشي إنك كلا فايدة سنة كلا هجوله إلى هذا السؤال سوي دارسن دونا فكرنا دارسن دونا وطن صوبن لي دونا أدين كنا طبعا وحد نقول أنتينا نصنا بدو نصدوينا جوله إلى هذا. السلام عليكم. وبركاته إن رؤانتي وتكون حسنتين مادام مش على وسعسوتين وطنيت ناس وتمدي فكرة تدك يومدني حقوقته آدي جماسيين تنكلا سؤال شو يركض يزعبك إن رؤانتي إحنا كده بدلي كرنا أقول زي المين لكن وأنا سودين إن شاء الله إن مهم دوبر اسمه حاول كأن لقى شقايا
oo haddii nabadgelyo imaan wax laga shaqey kara ma jiraan. maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay nabadgelyada in laga shaqeeyo oo maaragtay nabadgelyada biliiska iyo madaxweynaha ma ka shaqey karo. waa Soomaali dhan inay ka wada shaqeeyaan maaragtay nabadgelyada si ummadda maaragtay isku imaanayd in runaantii taas ayaan aaminsannahay aad muhiim waxa weeye laakiin dadka waxaan istiikaa wixii ka beddelaa laba arrimood. mid kale waxa weeye in bulshada ay u soo bandhigaan wax u cubtamo oo ah in ay baraarujiyaan dhinaca waxbarashada aqoon maadi iyo cilmidi ahaataba inay ku bartaan. labaadna waxa weeye in dadkii ay soo saareen in ay sii gudbin karaan waxa ay markaasi ay bareen oo ah in nabadda laga shaqeeyo iyo in macnaha la tuso wanaagga waddanka uu leeyahay. waayo waxaad ogaan kartaa marka aad macnaha maxayd aad tahay dallaawo waxaad ogaanaysaa marka aad qurbaha joogtid dhibaato badan aad dareentid ayaa waxaad dareemaysaa in waddankaada wax tari kartid. marka dhalinyaradii hore aqoon ahaan waqti ahaan iyo weliba meesha ay joogeen oo runtii aada u koobneed iyo dad badan oo gumaysiga joogay ayaa wax badan iyaga ka celin. laakiin aniga maanta waxaan bedeli karnaa waxaa weeye wax badan baan bedeli karnaa oo ah inaan bulshadii dhinac walba aan ka baraarujino. waxaa isbedel lagu sameyn karaa inay israacaan Soomaalida oo dhan. bulshada israacdo isdhexgal wada suubiyo waxa uu been la bedeli karo. waxaa ku daraysaa midna labadaba kaygaas kale haddaan isku tagno waxbaa bedeli karnaa bay yidhaahdeen. waa runtood waxbaa bedeli karnaa haddaan isku tagno, laakiin yaa waa dadka laga rabo in isku tagaan. waa annaga, waa dhalinyarada. qof walba qofku yaqaan oo dhalinyaro waa inuu wacyigeliyaa, wuxuu dhaamo u sheegaa. annaga isku imaanaa isbedel haddaan ka sameyno meeshaan joogno dalkeenana waan ka sameyn karnaa. so waxaan rajeynaa dhammaanteen inaan isdhiirigelino qof walbeetana qofku wanaag ku yaqaano uu wanaaggiisa u sheego, kaada wanaag ku aqoonina aada isku daydin oo wanaajisad insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan gabdhaha waxaan u maleynayaa ururka dhalinyarada laakiin markaan su-aalihii dhageystay iyo sida dadka u jawaabayeen waxaad moodaa rajo weyn inay soo socoto. maasha allah waa wax farxad aada u weyn ruma. marka koowaad magacayga waxaa la yidhahdaa Karan Shukur Dhoowey, waxaana xogeeyaha xisbiga Tayo dalka Norway, faraca Norway. xafiiska inuu weli taagan yahay anaa u mahad celinaya aada iyo aada noogu faraxsan xisbigan Somali Youth for Change oo weliba aan aada ugu farxay. aan la yaabay in guddoomiyaha gabadh dhalinyaraha inay tahay. waa arrin aada cajiib u ah, maxaa yeelay kalsoonida ay gelinaysa bulshada Soomaalida oo naga ka dhalnaa waxay tahay in gabdhuhu doorka ay lahaayeen ay si fiican u qaataan. xisbiga Tayo guddoomiyahan annaga waa gabar, maanta waa wasiire Dr. Mariam Sheekh. sababtuna waxay tahay waxaan dareennay haddaan xisbi nahay inay gabdhuhu ahaayeen awoodii keliya Soomaaliya isku haysay aan laga faa'iidaysan. rag fara badan oo hore oo dhintay hadda ayaa waxay yidhaahdeen dumarku doqon ma garato, waa xoog doqon ma garata ah. waana rag markaa fiirisid bulsho walba waddankaan aan joogna hadduu ugu horeeyaba awoodda ay leeyihiin dumarku raggu ma laha. waa naga caqli badan yihin, waa la ogyahay scientifically waa la ogyahay inay dumarku rag ka caqli badan yihiin, haddana way ka tayo badan yihiin. marka aada baa ugu faraxsanaya gabdhihii Soomaaliyeed inay qeybtooda ka qaadanayaan. su-aalaha halkaan hadda laga dhawaajiyey waxaan rabaa inaan laba erey ka yidhahdo su-aalahaas. change muxuu yahay wax ka noqono iyo inaan la nimaadno wax wixii hore ka bedelan. maxay ahayn wixii hore? waa wixii halkaan la keenay weyaan. maanta maanaa baahneen halkaa inaan joogno, banaanka daaqada fiiriya waa baraf, waa minus. gabdhihii waa hoogan yihiin, annagii dharab culus baan qabnaa, midabkeenana midab loogu talagalay ma aha. baahidana u kaliftay maxay tahay? maanta kasoo qaadadaan riyoono waxaan joogi karnay meel qorax leh, caano nadiifa leh, hilib leh, gabadhu ay xaragoonayso qaybo leedahay oo jilbaabkeeda iyo dharkay qabto hadday timaheeda u qaawan yihiin iyo hadday masarkeedu saaraydahay ciid kala. yurubiyankii waxay leeyihin afrikaan baa tihiin, carabtii waxay leeyihin afrikaan baa tihiin.
africa dhexdooda markaan joognana waa lagu yasayaa waa lagu cusuriyeynaya waayo waad ka duwantaha dadka noogu dhow oo kusoo shabahno waayo waa etoobiyana ma raba inuu ku arko hadduu awoodo waaba ku gubi lahaa adigoo dhan yaa u maqan marka yaad u egtahay ood ku dayartaa bini aadamku wuxuu u baahan yahay ilmuhu markuu dhasho wuxuu u baahan wuxuu ku daydo suudaan xaaladooda iyadaa bariga dhaxaa marka muhiimada iskumalika marka dhabta marka kaa marka la fiiriyo midabka wejiga muuqaalka boontiga kasoo wataa inuu soomaaliya gabadhii sidoo kale lagu qiimeynaya intelligencehaagii iyo caqligaagii iyo aqoontaadii waxaa laga yaabaa dharka a qabtid ama madaxaaga wejigaaga soo gaari koobnaato maxaa lagu kalifay waxaa lagu kalifay waa qabyaalad su-aashii labaad inay ahayd baan u malaynayaa qabyaaladu maxay tahay qabyaaladu waa wax qurba oo waxa ugu qurunka badan adduunka kasii qurmada waxaa yeelay waxay kaliftaa qof aan tayo lahayn aqoon lahayn in uu inta kasoo dhexbaxo ummadii oo dhan ku ciyaaro asagoo markaan ku hadlaya magacii qabiilka ah ama wixii dhacay ognaha foosha xumaa xasuuqa iyo dilka iyo wax aynu ummadda soomaalida taariikh lahayn inay dhacdo qabyaalad daraadeed marka waa wax virus nooca ugu xuno kansarka xun in lala dagaalamana waa muqadis haddii annaku aanan keenin idinku inaan keenin qof walboo soomaaliya meesha jooga uusan ka dadaalna keenin dagaalkaas ama dabargoyadaas ma dhammaanayo annakuna saanaan halkan u taagnaan doonaa example yar baan tusayaa dadka sigweynaha yaa mataqaana sigweynaha ama jibsi saa u taqaanaan waxaad arkaysaa qof jibsi ah ama sigweynaha oo lixdiisa lahaad qabo oo wax ka khaldanaysan jirin oo kaa xog weyn nin ama naag oo laami fadhiyo koob yaro intaa leeg hoos fadhiya markaa qof weyn bataa waad weydiinaysaa qofkan maxaa ka qaldan maxaa ku kalifay inuu halkaa fadhiisto miyuusan awoodin inuu baxo oo uu maaragtaa soo shaqaysta ama dhulka xaaqa hadduu doone ama shaqo kala daciifa ha qabto si uu xoogaa u helo maxaa yeele koobkaas qiyaastii misaan ku dhici karnaa isleedihin markaa fiirisaan daraaman iyo adaliyar iyo hoosle iyo way fadhiyaan koob baa u yaala maynaska aragtay imise karoon baa ku dhici karta koobkaas hadduu qofkaas baxo saacadii lacagta ugu yaro shaqaysan karo maalinkeeda hadduu fadhi xataa ma helayo waxa ku kalifa maxay tahay waa softwareka madaxiitu dhashay ilaa maanta ma arkin qof asaga u eg oo inta baxa soo shaqaysta oo lacag soo shaqaysto nool waa lagu arooriyey dariiqaana raacay dariiqaana wuxuu u qabaa wax normal inay u tahay bini aadamkana waa caadi haddii ilmaha dhasha aan la abuurin oo barabarka inuu xirto hadduu ku koro meela wada qaawanya wuxuu qabayaa inay caadi tahay inuu wada qaawanaado qabyaalada marka waa waxa lagu soo koriyey oo ilaa markaan aan nalagu yiri haddii inaan qabiilkiina kasoo dhex bixino dadkiina inaan u dhawaanin weligii horumar gaaraysaan sooma alternativeka weli maana arag maana arkin qofkii inuu kalsooni yeelan karo oo ummadda bulshada dhex geli karo oo kartidiisa iyo aqoontiisa ummadda ay kusoo dooran karto miyaanaan samayn karin marka dhibka uu leeyahay markada midada markada haddii softwareka uu kaa khaldaya dhibka uu keeni kara in qofka bini-aadamka oo lixiisa laxaad qaba in uu fadhiyo oo ilmo ku dhow ilmihiisna koobkaasii wataan generation ay noqoto haddii aanan dariiqan hadda aan ku soconno uusan ilaahayna garab qaban idinkana inaan tilaabo qaadin waxaan idiin sheegayaa meesha aan taaganahay maanta caruurteena kuway dhalaan kuway sii dhalaan inay kasii hooseeyaan baana kama sarreynayaan maxaa qofku wuxuu wax ku yahay aduu soomaali baa tahay wax kaa maqano dalkeena ma soo jeedin dalalka caalamka ugu qanigaysan yihiin waay aan isku dagaalana waan isku dagaalana softwareka ayaa maqan aragtidii kala oo dooneed oo dhinaca kala ahayd alright dhalinyarada marka maxay qaban kartaa su-aashii saxaab baa madaa dhalinyarada maxay qaban kartaa dhalinyarada waxay qaban kartaa waa marka keliya qofka bini-aadamka oo ugu flexibilsan yahay waa markii da-dii soddon ay ka yar tahay waddanka inaan joogno waa taqaanaa dadka ugu cusubgeeya waa dadka soddon da-dooda keena dadka waaweyn waa cusuri maxaa yeelay weli flexible ma noqon dhalinyaradu waxay keeni karaan waxay keeni karaan isbedel cajiiba isbedelkaasi muxuu yahay isbedel kasta ma doonayn maxaa yeelay dalka hadda isbedel baa ka dhacay niman waxaa yimid isbedel ah laakiin isbedel aan rabnaa waa maya isbedel ma rabno inaan ka dilo ninka aqoonyaanka gabadha kartida inaan ka dilo ma rabno waxaa rabnaa dadkeena tayada inay soo baxaan dad marka ayagoo magac nooc kala sheeganaya in ay
dadka noogu tayada fiican inay dilaan marna so isbedelkan noocay waa isbedel cadaalad sinaan ah iyo horumar ah that's why dowladda hadda dhalatay iyo dowladaha ka dambeeyaba ama ha xumaadaan ama ha khaldanaadaan ama ha saxnaadaan annagu waxaan ku qasbanay dhalinyaradan inaan garab istaagno oo taageerno wixii ka qaldanaan ka toosina maxaa yeelay wax xun waxaa la yidhi qofka balaanka xun wuxuu ka fiicay qofkaan balaan lahayn dowlad marka siyaasadana aan ka qayb qaadano oo sida u ekaan lahaa gurigaas inaa guri siyaasadda idiin sheegayo inaad ka carartaan waa guriga adiga aad leedahay wadankan hadda ka hor nin aan meel ismawid oo xisbigan ka tirsan hooyada wuxuu yidhi dadkeena ajnabiga khalad baa fahamsantiin markaad maqashaan FRB iyo AB iyo wadooda waxaad u qabtaan buu yidhi sidii marka laganaas dagaalayno annaga waxaan isku haysnaa qolkaanaan leenahay dahab masaaran u dhiganaa iyo fadhiga mise saanaan u dhiganaa qola waxay leeyihin annaga maya dahab waxaan ku xiranaynaa buluug ah fadhigana saanaan u jeedinaynaa arbaas baa tirana maya dahab guduudaan ku xiranaa xagga u jeedinayna intaasaan isku haysanaaye laakiin annagu waa isqalayna dahan iyo gurigan waa calamkeennii iyo gurigiina waa wadankii wadanka marka annaga aan isku qabsanno oo xisbiye aan noqonno oo dhalinyaro hawlahayo oo had yirahdo okay gurigaan saaniga u dhisnaa hal dabaqaan ka dhignaa mise laba dabaqaan ka dhignaa iyo misaan aan u jeedna laakiin yani muusagaari heer aan isku qalno oo isku dirno oo isku nacno oo qabyaalad iyo qurun iyo waxaan jirin iyo yasmo iyo kan iyo kana filaan iyo 4.5 iyo wax aan wanaagsanayn waxaan rajeynayaa walaalayaal inaad mar labaad ku adkeyn muhiimadda ay leedahay midnimada iyo waxqabadka idinku maxaa qaban kartaa annaga halkaan joogna waxaa qof walba is yidhaahdo barafkaan joogna annaga maxaa qaban karnaa dalkii waa naga fogyahay maanta haddaan qayrino no waxaad qaban kartaa inaad adiga iska bilowdid maanta intaan ku fadhina dad tayalaa tihiin qof kasta qaymo leeyahay maxaa yeelay enerjiga waxaad usoo gelisay danahaaga soo tagtay in aad dalkaagii wax xataa ku oola oo wax u tahay inaad u qabatid intaas ayaa taya ku leedahay maanta intaas ayaa dad kusoo jiidan kartaa markay dadka ku tira badnaadaan messageka aad diraysid oo ah war annaka dalkeena annaga askara annagaa rabna inaan madax banaanaano islu ekaanayana annaga xaqu leh waa inaan wax ka leelana oo tayadaada iyo caqligaaga iyo ra'yigaaga inuu baxo oo ummadii gaaro oo aad sidaa jeclaan lahayd nabadgurigaagiy aad wax ka ogaatid laakiin maanta kama ogin waxaan wadaa dhulkaan annagu halkaan malihin manana sii joogi doono midka aan leenahay anuu soo dayacayna ninka laguujiga kuma garanayo waxaa jira sheeg mid fiican baanahay soomaali fiican gabar fiican baanahay oraa gurigaagii baa loo jeedaa oo qurana oo soo burburisay aniga ma soo burburin ninkaa hebel soo burburiya hebel waa kuma see wegyaa I'm sorry hebel aduu ku wegyaa ninkaan gaalkaa ma yaqaan hebel soo ma gedi kari sharaf ma yeelin karid hebel baanahay injineer baanahay dhakhtar baanahay gabar sii kibraadaan ahay qofkaasi meelaha lagu arkaa waa sida lagu arko maxaa yeelay perceptionka lagaa qaba gurigaagii ayaa exaama laga soo qaadanay gurigeedina waan aragnaa waan ku dheeraada walaalayaal waxaan jecelahay in dadaalka aad wadaan inaan noqon dadaal aan maarata aan faa'iido badan lahayn idinkana inaynaan u arkin waxaan rajeynayaa in meeshaan meel ka weyn aan isku aragno mirahan aad bilowdeenna ayagoo intaan ka waaweyn inaad gurataan annaguna waa idin garab taagana haddaan odayaashiinahay soomaaliyeed dhalinyarana waxaa leenahay soo barbaaraan siyaasaddan ha ku dadaalaan walaalayaal ujeedagoodii mana istaagin aqoon cilmiga dheeraha meeshuuna soo istaagay laakiin waxaana soo istaagay dareen oo waxaan filaya inay dad badan igala sameeyeen dareenkaasoo ah wadankeeni iyo micnaha uu ku dhisayahay waqti xaadirkaana taagana haddii aan guda galo muhiimadda oo saxda ah waxa waaye qofka markuu maqlo magaca wadani ama waxa ay ku dhisantahay dowladnimo kalsooni qaran ku dhisan dowladnimo waxaad arkaysaa inaad helaysid kalsooni yani sharxay ahayd inaad wadan leedahay laakiin markaad eegtid dhinacyada adduunka meel walba adduunka aad ka istaagto waxaa arkaysaa muwaadin soomaaliyeed oo ka dhibaataysan wuxuu ugu dhibaataysaya waxaa waaye wax kalena waa dowlad la-aan dadka kale ee nala midka qaaradda africa ku nool wadamo u dooda ama safaarada u dooda ayay leeyihiin laakiin anagu ma lehin
marka maadaama aan u istaagnay isbedel, waa maxay isbedel? wuxuuna ku dhisan yahay isbedel, wuxuu ku dhisan yahay isbedel dhibaatada aan ku jirno sida aan ugu bixi lahayn oo isbedel ula imaan lahayn. yaa sameyn kara isbedel? waxaa sameyn kara qof maskaxdiisa joogto dareenna leh. yaa looga baahan yahay inay abaabulaan dhalinyarada. dhalinyaradu maxay sameyn karaan? door noocee ay ka qaadi karaan inay isbedel wadankooda ku dhaliyaan? waxaa kooda muud u ah sida ay dad badan ka dhawaajiyeen ama soomaalida inta badan ay ka dhawaajito meel walba la isugu yimaado qabyaalada. waa maxay qabyaalada dhibaatada ay leedahay? qabyaalada waxay dhibaato fara badan sameysaa. hooyo ayay ilmo la-aan ku ridaa, aabba ayaa wiilkiisa godugalo asaga sababtiisa, wuxuuna sabab uu noqday reer hebel iska dhici. qofku iska dhicinayo qof kale maaha, waa walaalkiis. waxaa kaloo jirto hooyo cunugkeeda u darsatay iskuul ayaa waxaa la qarxiyey maalintii uu haminayay inuu la guddoonsiiyo shahaado oo ku shaqaysto wadankiisana wax ugu qabto. sababta loo dilo wax kale maahan, waxa waaye aqoonta iyo waxa uu bartay iyo waxa uu sameynayo oo wadankiisa u qabanayo. waxaa muhiim ah la dagaalanka qabyaalada inaan marka hore ka bilaabno, maadaama aan dhalinyaranaanay doorkana looga baahan yahay inaan qabano ama waxaa isbedel ula imaan karno la dagaalanka qabyaalada. waxaa kaloo sameyn karnaa oo lagu maarmaan waxbarashada nooc ay doonta ha ahaatee. waa maxay waxbarashada nooc ay doonta ha ahaatee? markii la leeyahay looga baahan yahay xiriir joogto ah. waa maxay xiriir joogto ah? qofku inuu xiriir yeesho. yaa xiriirayo? waa maxay xiriir joogto ah? dhalinyarada waxaa looga baahan yahay degmo degmo, gobol gobol, guri guri, siday u tegyihiin inay iskugu xiraadaan. markay isku xiraado maxaa imaanayso? maxaa noodana? maxaa qabsan karnaa? maadaama ilaa waa isku xiran nahnay. waxay kaloo dhalinyarada sameyn karaan kala dambeyn, nabad iyo sinaashi iyo cadaalad. waayo ayagaa dhalinyara, ayagaa bilaabay markuu guriga ka garaacaan qofka ku nool iyo qofka wadada maraayo intaba ay kala yaqaanaan siday u kala nool yihiin. waxay sameyn karaan inay wacyigeliyaan nabadgelyada ilaasho. askari nabadgelyo ma ilaasho. meesha hadda joognada askar ma joogto, waana nabad. waxaa sabab u ah nabadgelyada dadka deegaanka, dhalinyarada inay sameeyaan in isbedelka ay taayaan. dhalinyarada maxay nabadgelyada ku keeni karaan? waxay ogyihiin ninka xun ee xaafadooda degan, waxay ogyihiin ninka wax hagaagaya ma jiraan. ninkii wadanka diyaar u leh inuu wax u qabto Soomaaliya lahayn, adigana Soomaaliya tahay, qabyaalad horumar kuma gaarno. marka waa inaa u istaagnaa. markii aan intaas waa ku gaarno waxaa sameyn kartaa waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo karar shukri oo dabcan khatiya qaali ah gacantiisa ku haya. waxaan jeclahay in maxaa yidhahdaa karar ku wareejiyo mikrofoonka kusoo noolay uga faa'iidaysayna waqtiga ayadaan dhalinyarada Somali Youth for Change madaxdeeda iyo dad ka mida dadkaas oo mutaystay sharafkan oo ku mutaystay dadaal iyo hargeentinimo iyo waxqabad ay la yimaadeen si ay ugu dhiiradaan in hawshaani hawl ka fiican ba ay sii wadaan. waxaan jeclahay inaan u yeero mudane cabdicasiis cilmi yuusuf oo ugu gudoomo shahaadadan. waa shahaado calankii Soomaaliya calanka Soomaaliyeed iyo weliba halgamayaashii Soomaaliya dad kamid ay ku sawiran yihiin. waxaa ka muuqdaa shucuurtii iyo astaamihii lagu yaqaanay Soomaaliya oo dhan. waxaan rajaynayaa inay kugu noqoto mid ku dhiirigelisa oo aad ku dhiiratid inaad hawsha aad u wada ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan jecelahay inaan u yeero halkaan soo istaaga sidoo kale inuu shahaada gudoomo ha ku noqoto shahaada mid kusii dhiirigelisa oo kugu kordhisa dareenkaad iyo shaqada iyo dareenkaada isnimada Soomaaliyeed.
waxaan rabaa inaan u yeero marwo faadumo maxamed daahir oo ah gudoomiyaha xisbiga Somali Youth for Change. faadumo waxaa tahay gabar dhalinyaro dadaashay waxaan rajaynayaa inaad u noqotid sawir gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si ay ugu dhiiradaan in gurigooda markaan gurigooda leedahay waxaan ka wadaa wadankooda in ay sida u ekaan lahaa ay ka shaqeeyaan waxaan rajaynayaa inaadan ka daalin hawsha wanaagsan oo aad wada dadkaaga ku soo dhammaantiin waxaan rajaynayaa waad fariisan kartaan idinkuna waa mahadsantiin haddii aad shaqaysataan sidaa isi ka qurxoon haddii aad shaqaystaan taa idinka qurxoon soo noqod wanaagsan aada iyo aad baad u mahadsan tihiin sida sharafta leh ee aad inooga soo qayb gasheen xafladani qiimaha leh oo ay soo qaban qaabiyeen ururka astaanta u tahay calaamada gaashiga ka muuqata dabcan waa garanaysaa waa astaantii qaranka dhexdeeda ugu jirta halkani waa geedka cambaha waa astaan ka soo qaato aada u calaamada waa geedkaan doonayna inaan abuurno waxaan jeclahay in aan ka hadlo sababihii loo asaasay ururkan iyo ujeedka dhabtahay ka dambeeya 4 October waad ogtihiin waa maalin aada u madow oo la laayay arday dhalinyaro ah Soomaaliyeed iftiin u ah bulshada Soomaaliyeed oo ku haminaysay inay waxbarashadooda sii wataan oo ku haminay gaaraan wadanka Turkiga si ay jaamacadaas u wataan wixii lagu sameeyey dabcan waa wax qofka bini aadamka iska dhaafka Soomaaliga iska dhaafka islaamka ah iska dhaafka gaalka ah iska dhaafka doqonka xitaa waxba garan uu ka xumaanay qof bini aadam ah oo dhahay waan gubanayaa damiya dareenkaasi dhabtahay xanuunka badan dad fara badan saameeyey baa lagu qasbay inaan ururkani sameyno ururkani wuxuu soo maray marxaladaad u kala duwan marka ku dheeraan uga dambeeya ay sii faahfaahin doonaan laakiin dib aan u raacno wadanka Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii isticmaalka wadanka Soomaaliya uu ka baxay 1960 wadankeena wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan haba ugu xanuun badnaaday wixii ka dambeeyay 1991 oo dadkii Soomaaliyeed ay garan waayeen dantooda waxay tahay waxa ay halkay u socdaan يعني waxay u ekaadeen xoolo ah aan garan waxa ay tahay dantooda 1943 waxaa la sameeyey urur dhalinyaro magacoodu wuxuu ahaa Somali Youth Club waxaa la soo gaabin jiray SYC Somali Youth Club markii dambe laakiin wuxuu xilibsiitay SYL dad fara badan ay ku yaqaaneen Somali Youth League marka أنا هذا وحنا هنكون بالعوالة SYC حنجعلنا هالسيدة يكون بالعوالة كسر مقعده أسوسه بيرمن لكن هذا كرسمي SYL هستين عندوني إلى كل كلمة وأنا الصومالية أول حي هذا كوكسويها حاولنا إن هذا أي صومالي كل أحيان وحق بيعرض وعتها أي بسرعة جد كي قراره لكن عندنا سيدة ميراث صومالي دون قالوا لهاين ما هذا اليوم من المقدار وليبان ياشر وليبان قول كبير الوطن وإن قال في قاتان وإن كثير رسمي قاعد يسوق بها بل يرادوا وأود الكلمة وطن كان يود الموضوع عدم يقول الله وحكى ذلك هذا مثال وما قال الله بنا النرد فرحوا بالكير كل مورانا سؤال سويدين ولا أنا ما قال الله وطن كان أنا سومالي Somali bana sa ya ta Somali no kiisi uu fikirayo maanta Somali waa ka ururka soo baxay oo daacad ka tahay oo maxay yiraahdaa kalsooni haysta kalsooni yani runta ay sheegayaan hadafka ururka loo asaasay uu hirgeli doonaa sababta dhimanaya ayuu hirgeli doonaa waa ku diyaar doonaa marka qabiilada dadka soo gudbay waxa dhacay
in dhalinyaradu ay yihiin dad ka fakiraya qurbahaasiyo ku taageereen nuurisa lagu lahaa dad baa hadda waxaa laga yaabaa in madaxa uga ufuran tahay sida halkaana kumaa lahaayeen halkaan aad joogtaan adigan waxaa laga yaabaa dhaysin ama wadanka ku noqotaan marka ma aha inaan raacno keliya wadanka Soomaaliya hadduu nabad noqdo ayaan ku noqonayaa yaa nabad ka dhigaya misweydiisan weli misweydiisan yaa nabad ka dhigaya haddii aniga Axmed Taajir iyo Faaruq iyo Naciimada ay yidhaahdaan wadankeena nabad ku noqdo baan ku noqonaya inta koo horeyso maxay yidhahdaa نومن جونينا كل بلدنا عروضنا ومننا وحسن بين عروضنا ومننا غير يعني وحيارة حمل بيربع سنة بيناني سنة سنة بيناني وحيارة حمل بين وين غير كذا سمعنا صوب ديار منا يا سومنا صوب ديار منا حمزة بيننا أين ده يعني سومالية توصل سكوت زين حتى كيما تقدر من إن كلمة تقدر محل هذا أن تعبيرنا كان قلدان أن توصله أنا قلب أنا أوقع قلب أن حمل بعضهم ولين صديق منه أنا جانا سواسي عن حنديها رنا هاي إن وقت كنا ما كنا إلى نفط بقى أبرنا شيء ودن كسوماليا ورنا قولها ودن الدنيا رجع قاعدة أنا ما سنتي. وما سنت تاجر أمانته إن مركو بعد طبعا مخلصين منطقة يدير وركان dhalinyarad oo u taagan inuu mideeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan muhiimadeedana waxa weeyaan inaan ku laabano dalkeena wax ka qabano kaliya hadal ahaan ficlan sameeyno طبعا calaamadeena waad aragtaan hadaa Taajir ayaa si fiican idinku faahfaahin kale igama baahno haddaan dib ugu laabto bilowgii ururkan wuxuu aasaaskiisa bilowday 7 Oktoobar 2011 sanad ka hor sidaan jeclahay bilowgiisa ururkan wuxuu ku bilowday wuxuu ahaa 4 Oktoobar dhibaatadii dhacday ee 2011 ardaydii la laayay oo qiiro aad u weyn gelisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qaaradda adduunka kala duwan ururkan asaasiisa koowaad wuxuu ahaa inaan qiimaantana meeshan taagan dabcan saad arkaysan xiriiriyeena Axmed Taajir oo dabcan asagana isbiiris geliyo maxaa la yidhahdaa xil iska saaray inuu dhalinyaro isku keeno teleefon hadduu ka xiriiriyo hadduu fadhi isuu keenaba uu ka hadlo uuna wanaaga faro dhammaantood aasaaska ururkan kadib degdeg waxaa u suurta gashay inay telefoon iskaga yimaadaan telefoon qad iskaga xiriiriyo 200 qof iskugu yimaadaan telefoonada la keeno dad aqoon leh oo telefoonka ka hadlaan waaniya dhalinyarada Soomaaliyeed kadibna wax kala faa'iideystaan kadibna waxay go'aan ku gaareen inay sameeyaan ficil maadaama telefoonku wax badan ka jiray xiriir qof walba uu fikrad haystay qof walba uu ficil rabo inuu sameeyo waxay go'aan ku gaareen dhammaanteen inaan ficil sameeyno ficilkana wuxuu noqday ururkan inaan asaasno kulankii koowaad ee urur ahaan aan dad isku keeno wuxuu ka dhacay Bergen April 2012 dhalinyaro aad u fara badan ay isugu yimaadeen caruur yaryar ayaa dhaantana ciyaareen waxyaabo badan oo hidde dhaqanka ay ka daawaneen faa'iidooyin badan oo ka helnay dabcan SYC hadaan nahay wax badan oo faa'iido ay ka soo aragnay kulankaas aan ku qabanay Bergen ujeedooyinka ururka waxaan rabnay inaan sameyno dabcan waxyaabo aad u badan weeyaan waxaan ka mid ah inaan badbaadino aan kobcino jiilka cusub ee soo koraya caruurteena inaan barno dhaqankeena diinteena waxyaabaha u taagan oo wanaag iyo isbedelka aan rabnay inaan ka sameyno dalkeena taasna waxay horseedaysaa dabcan inaan ka baxnay jahliga hadda lagu jiro iyo kii ku jiray waalidiinteenba oo dabcan heerkan maanta na soo gaarsiiya inaan ka hortagno caruurta waalidiintooda laga qaato
aad ku aragteen Norway aad ugu badan tahay iyo Yurubta kale iyo Mareykankaba taasna waxaan u wada fariisanay fikrado ka dejinay aan uga wada hadalno wax badan qaabka u sameyn lahayn ficilkaas aan hirgelin lahayn waana qaab hadeertaan aad looga cadanaga kaliya uga baahannahay bulshadeena inay ugu taageeraan inay ugu caawiyaan insha Allah inay noo suurto gasho rajaynayna inaan sameeyo wacyigelino dhalinyarada aan usoo jeedino waa tan maanta awoodnoo kale iyo kuwo ka badan oo soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo si aan sidaan sheegnay waan u kala faa'iideysano waxaan naqaanaa anagoo dhan because qof walba Soomaali aqoon u leeyahay maskax u leeyahay caqliga ku jiro waxa u baahan yahay kaliya qof la fariisto yiraahdo wax maskaxdaada ku jira bal noo sheeg inaan aruurino dhaqaale aan yeelano kayd Soomaalidu waa dad deeqsiya markaa runta isku sheegno waa dad walaalka Soomaaliya baahan hadaad tiraahdo qof kugu fiirsanayo ma laha qof walba wuxuu hayo ku siinaya laakiin kalsoonidii ayaa naga maqan maanta hadaa yiraahdo aniga Soomaaliya waxa aruurinayo waxay maanaysa meeqa waxa aruurinaysa maxay qabtaan adiga maxaad qaban kartaa kaliya insha Allah haddii dhalinyaro anagoo badan hadda saan iskugu imaanay iyo kuwo ka badan way iskugu imaadaan kalsoonida way badanaysaa oo inaan isku kalsoonaano waxaan istarno dabcan waxaa aruurinayna dalkeena dadkeena oo aruurinayna insha Allah waxaan aad iyo aad ugu dadaalayna inaan la dagaalano jahliga iyo qaadka qoysaska Soomaaliyeed oo wada burbursan yihiin dhammaantood ma dhihi karo astaghfirullah badankood aad ay u burbursan yihiin waxaana keenay qaadkana waa qayb jahliga ka mid ah waxaan aad u jecelnahay inaan kaas burburino oon ka soo qaadano waxyaabaha ugu waaweyn oo goolalka aan ka dhigano insha Allah burburiska qaadkana dabcan qoysas badan ayuu isku keenayaa haddii noqoto hooyo iyo aabi iyo cunugeeda soo fariistaan waqti isku helaan waqtigaas la isku helana dabcan wadaninimo keenaya insha Allah taasna dadaalkeena ku jirnaa waan ka wada fariisanay iyadana waan ka wada hadalnaa insha Allah hadda adinka fikradahaasni waa lagu darsan doontaan dhammaanteedna wayna wada furantahay because qof walba Soomaaliya ama walaalkiis hajaad cuna ama aabihiis ama walaashiis so lama dhihi karo nimanka kaliya qaadka cunaan waxaan aaminsanahay ku taagannahay kuna taagnaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya inay tahay qowmiyad kula aan qaybis lahayn qabiilka waan kasoo horjeednaa qabyaalad ma rabno inaan isku tumano ma rabno inaan kala sarayno annaga dhan mid ayaan nahay walaalaan nahay dad isjecel waa inaan noqonaa hadduu Ilaahay yiraahdana taasaan baad marku gaarina haddaan nahay ururka Somali Youth for Change waxaan idinku soo dhaweynaynaa waji furan qalbi saafi ah iyo walaaltinimo aan dhammaan weligeed insha Allah waxaan rajeynaynaa inaad sidoo kaleeto adinkan noo xushmaysaan oo noo soo dhaweyntaan si aan wada shaqeyn u yeelano waayo haddaan wada dadweyne aad u fara badan baa xafladan ka qayb galay qaybo kamidkii kasoo qayb galay xafladan qiimaha badan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada Somali Youth for Change ayaa waxay aad u faraxsan yihiin sida sharafta leh uga soo qayb galeen waxaan midnoo siinayaa qaybo kamid ah dadkii tirada badan kasoo qayb galay xafladan ayuu isku daysan si tareenkiisa maanta هذا مفرحسن هذا محفلة كسوق قلي وحن كيف مجال بارجن النرويج طبعا وحن الجوجا مجال كم إذا مجال هو النرويج درامن هذه أمها سلطان ما يعيو حوانا إما هذا مفرحسن أنت أنا إمادة أنت ردك ساكي إمادة Thank you magacaygu waa Aamino aad ayaan ugu faraxsan inaan kasoo qayb galay xafladan waxaan deganahay magaalada xafladda lagu qabtay oo magaceeda la yiraahdo Daraamin. Thank you magacaygu waa Cabdicasiis Yuusuf waxaan ka imaaday gobolka Oakland karaan qaasatan Daraabu aad ayaan ugu faraxsanahay halkadan oo kasoo qayb galay lagu qabtay Daraama waan soo dhaweynayaa. Thank you فريد ووضع عقار نقم عراد لك فيوبان إن شاء الله مرباد عرانو ربي
سوعين عربادو سيد عربتيو وبحر دينار عرفي دونتا وعشاء ماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا لدهبك عليو شدالك عميرا عليو عيرين لصوبحي عليو والعيرك قبسني عليو وعشاء ماني عليو عالمكو إدل عليو مقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا لدهبك عليو شدالك عميرا عليو عيرين لصوبحي عليو والعيرك قبسني عليو والله بالله مرباض حرانو ربي سوعين عذبانو سيد عروتيو وبحر دينار عفي دونتا Thank you very much.